iyadoo maalmihii ugu dambeeyay socdaal shaqay gobolada bariga Soomaaliland ku mareeyeen wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali oo weeliyaan heer ilaaliyaha guud ee qarankani Soomaaliland taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliland sareeya Maxamed Cismaan ayaa maanta soo kormeeray taliska ciidanka bilayska gobolka Togdheer jeelka weyn ee magaalada Burco saldhiga dhaxeeya sidoo kale maxkamadda gobolkani Togdheer kormeerkani ay ku saleysnaa sidii ay u horumari lahaayeen bahda cadaaladda iyo sidii uga warhayn lahaayeen maxaabiista ku sugan jeelasha magaaladani Burco kormeerkaasi kadib waxa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland uu kulamo goos-goos la qaatay dhammaan bahda cadaaladda iyo garsoorka gobolkani Togdheer kaasi oo ka xaq wareystay hanaanka ugu adeegan bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolkani Togdheer isla markaasina hoosta ka xariiqay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen oo horumarin lahaayeen dhammaan bahda cadaaladda gobolkani Togdheer waxaana markii ay kulamadani soo idlaadeen faahfaahin ka bixiyay laamaha cadaaladda gobolkani Togdheer qaabka ay ugu shaqeeyaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco mudane gudoomiye isbedelkii wax badan buu maartay soo kordhiyay waxaad ka dareemi doontaa bulshada aad la kulanto insha Allah wada shaqeynta maxkamadaha xeer ilaalinta ciidanka asluubta iyo xabsiga booliiska iyo dhammaan populationka iyo maamulka gobolka iyo degmada dhammaan aad bay u fiican yihiin aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay bahda garsoorka gobolka Togdheer mudane gudoomiye waxa noogu timi waxa weeye waa kormeer shaqadii cadaaladda ama garsoorka ee loo idmaday haddaan nahay garsoorka gobolka Togdheer in lagu jeegareeyo lagu dabagalo ayaad noogu timi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku shaqeynaa haddaan nahay bahda garsoorka gobolka Togdheer kalsoonidii la siiyay ayaan ku shaqeynaa marka waxa la yeeyahay mudane gudoomiye maadaama kalsooni la siiyay annaguna kalsooni waxaan ku qabnaa ciidina magacawday ama ciidii noo dirsatay shaqadani kalsooni ayaan ku qabnaa inta waxaan ku darayaa garsoorku runtii shaqadan waa shaqo culus oo mas'uuliyada waxa weeyaan annagu diyaar baan nahay heegan baan nahay isbedelka aad rabto inaad ku samayso cadaaladda Soomaaliland balin walowba oo garsooraha oo meel far maxkamadda maanta la taagayeen maxkamadda Ilaahay baa ka dambaysa xukun kasto oo aad ridona xukunkii Ilaahay baa ka dambeeya subhanahu wa ta'ala xukun kasto oo aad rido xukunkii Ilaahay baa ka dambeeya ka Ilaahay inaynu kaga cabsano ayaa loo ummadan Ilaahay inaynu kaga cabsano yaani waxa weeyaan ummaduna garsoor xumada gudoomiye qayb bay ka tahay sidaa xeeraaliyuu sheegay waa dhab يعني waxa weeyaan umada inta xaq doonaysa iyo inta xaq darro doonaysa waa badan waa hal qodob oo la xiriira xabsiga ama xabsiyada gobolka ee aniga hoos yimaada waayahay waxa halka yaala xabsigu marka xabsi la yiraahdo ninka wax dilay ka tuuga ka kufsiga sameeyay ka soo dhaxbaxay bulshadii uu la noolaa oo ka mid ka ahaa ee faraha laga gubtay bileysku soo qabtay ee maxkamadda la soo mariyay sida loo soo wadaaba xabsiga la keena haddii marka halka dil ka dhaco oo laba beelood isku yaacdo saldhigu ninka ku xidhan yahay kuma qancaan xariiqo markaynu ka wada hadalno laakiin marka la yiraahdo jeelkii baa loo gudbiyay markaasaa kii xumaanta wadaya kala dib fadhiisanay oo ninkii wax xidhay jeelkii baa la geeyay oranay oo ay isku wada xidhan tahay shaqadu hadday garsoortay iyo hadday bileys tahay iyo hadday bulsho tahay bay isku xiran tahay anigu waxaan u dareemayaa asluubahan inaan nahay horta marka hore xaniyi qaranka waayo halkii ay ku guureysay weey halkii ku guureysay anagu horta cadaaladda gobol ahaan marka garsoorka iyo maxkamadahan aan magaalada waan anu dhul doola xoogaal baanu nahay arrimahooda iyo hawlaha ay wadaan intii aad xafiiska timay gudoomiye isku bedel baad samaysay isku bedel wanaagsan baad samaysay isku bedelkaasi waxbuu ka bedelay garsoorka waxaad gobolka keentay gudoomiye raafaan oo khibrad u leh arrimaha cadaaladda iyo xubno kale oo gudoomiyaala oo iyaguna miisaan culus leh ugu dambeyntiina gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa waxa uu ku dheeraaday ujeedada uu ku saleysnaa socdaalkiisa iyo waliba waxyaabihii uu kala kulmay goobihii uu socdaalka ku soo maray gobolkani Togdheer horta inaanu dadka shaqeynaya ee gobolada fogfog jooga u tagno garab istaagno ka soo baal shaqeyno ogaana xaaladooda iyo xabsigii baanu
tusaalahaan saaka oo dhan waanu soconay xabsiga weyn baanu tagnay police stationskaanu marnay maxaabiista ku xidhan baanu qof u dul istaagay qof walba waxaan ogaanay imisa sanuu xidhnaa muxuu xidhan yahay yaa ku soo xidhay xadhigaagu ma dhammaaday imisaa garsuga ah imisaa xabsi gudasho samaynayo xadhigoodu dhammaaday dad baanu aragnay ma garanaysaa caasi waalideyna caruurtii baanu eegnay saa xeeraaliyuu idiin sheegayo midmid baanu u dul istaagay waxaanu sababtaan iminka markaa si gaara garsoorka ula kulmayna waxa weeye xaaladdaanu halkaa kusoo aragnaanu kula xisaabtamayna tababaradii waanu soo decentralize garaynayna tababaradu midda kale waa inay diversification noocii ahaadaan tababarada waanu soo gudbinaynaa in degmooyinkii gobolada la gaarsiiyo inaanu fakan inaan kufsigan imika goboladan tagno marno dimashan marayna oo waxna hor yaala kiisaska ugu badan kufsiga sar u soo kacay culimadan leenahay kawaaniya horta ummadda guurka hal fududeeyaan leenahay waxyaabo midiska lagula dagaalamayo weey doxgaradkii oo aqoon-yahankii dadka barwaaqo aadan maxmed shabakada caalamiga Odweyne News magaalada Burco.